بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعنا وناكسن داودياش إن جعلنا هيو ملك ساد جوكتان سكستاد نود داونيسان حتكسو دواتان واركا ورباهنتا كاهية ميديا قد بدأت كود داون دونتان وحاكم دا xubna ka tirsan guddiga loo xil saaray dib u heshiisiinta maamul goboleedka galmudug oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ergadii ugu faraha badneed oo kusii qulqulaysa magaalada dhuusamareeb halkaasi oo lagu qabanayo dib u heshiisiinta maamulka galmudug maamulka gobolka shabeellada hoose oo ballan qaaday inay dib u dayactirayaan buundooyinka burbura ee ku yaala deegaanada maamulkaasi allaha u naxariistay jilaa soomaaliyeed sahre roble oo ku geeriyootay magaalada burco ee gobolka tagdheer ciidamada xoogga dalka oo maanta la wareegay sugidda amniga deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud iyo ciidamada amniga dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo gacanta ku soo dhigay hubsi sharci darro loogu isticmaalayo deegaanada maamulkaasi qodobada dibadda aad ku daawan doontaan warka kaahiye meediana waxaa ka mid ah muhaajiriin fara badan oo ku geeriyootay gaari kula rogmaday dalka Turkiga iyo ku dhawaad 10 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay jaamacad ku taala bartamaha magaalada Kaabul ee caasimadda dalka Afghanistan markale daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa kaahiye media haddii aad ku cusub tahay channelkan ha mogaanin inaad saarto subscribe sidoo kale like aad dhahdo share aad la wadaagto saaxiibada ku soo dhawaada saaxiibayaal qodobadii aad daawateen oo intii hore ka faahfaahsan aynu ku bilownay guddiga loo xil saaray dib u heshiisiinta maamul goboleedka galmudug xubna ka tirsan ayaa socdaal ku tagay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud gaaray qaar ka mid ah xubnaha 12 ka ahaa ee dib u heshiisiinta galmudug uu soo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Cabdi Maxamuud Zabriye xubnaha waxaa qayb ka ah waa kuwa gaaray magaalada dhuusamareeb maxamed maxamuud gacmo dheere oo ah siyaasi caan ka ah gudaha dalka Soomaaliya isla markaana guddigan qayb ka sidoo kale Cabdiraxmaan Baadiyo hogaamiye u ah guddigan ayaa gaaray isla markaana haatan la taliyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qaar kale oo ka mid ah xubnaha ayaa saacadaha soo aadan la filayo inay gaaraan magaalada dhuusamareeb iyadoo toddobaadka soo aadanna la filayo inuu ka daafurmo magaalada dhuusamareeb shir isugu soo dhaweynayo guud ahaanba beelaha wadadaga deegaanada galmudug dhanka kale waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud kusii qulqulaya ergadii ugu faraha badneed oo filaya inay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta loo qabanayo beelaha wadadaga deegaanada galmudug walow ay jiraan beelaha qaar oo dhaliilay gaar ahaan beelaha degan magaalada cadaado ee gobolka galgaduud koonfurta magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale dadka degan magaalada xeraale oo war qoraal oo soo saareen ku sheegeen guud ahaan inay ka hor yimaadeen haddana waxaa magaalada dhuusamareeb gaaraya qaar ka mid ah ergooyinka kuwaas oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan dib u heshiisiinta uu ilaamiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre kuwaas oo isugu soo dhaweynayo guud ahaan beelaha wadadaga deegaanada maamul goboleedka galmudug wali saaxiibayaal warka warbaahinta kaahiye media ayaa daawanaysaan gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose wax uu cad ku maray in maalmaha soo aadan ay bilaabayaan dib u dayactirka buundooyinka ku burburay dagaaladii ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ninka lagu magacaabo Ibrahim Aadan Cali Najax gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo waraysi siinaya TV-ga qaranka ayaa sheegay guud ahaan inay dib u bilaabayaan isla markaana dayactirayaan buundooyinka ku burburay dagaaladii soo laablaabtay ka dhacay gobolka shabeellada hoose waxa uu sheegay in buundooyinku muhiimada u leeyihiin dadka kala degan waqooyiga iyo koonfurta magaalada sida uu hadalka u dhigay isagoona aysan ka maarmin magaalooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeellada hoose inay lahaato buundooyin isagoona wacad ku maray in maalmaha soo aadan la dhisi doono waxa uu sheegay in xarakada al-shabaab ay soo celceliyeen burburintaas aatay waqtigan ay isku diyaarin doonaan siday u xaqiijin lahayn amniga buundooyinka ay ka dayactiri doonaan gobolkaasi shabeellada hoose dhanka kalena allaha u naxariistay jilaa Soomaaliyeed Sahre Roble ayaa ku geeriyootay magaalada Burco ee gobolka Tagdheer wararka ka imaanaya magaalada Burco ee gobolka Tagdheer ayaa sheegaya in halkaas ay ku geeriyootay allaha u naxariistay jilaa Soomaaliyeed ahna fanaanad iyo sidoo kale abwaanad Sahre Roble oo qayb ka ah dadka caanka ah geeyiga Soomaalida sida la sheegay maalmihii la soo dhaafay ayay taalay xanuunka iyadoo oo qabtay cusbitaal ku yaala magaaladaasi Burco ee gobolka Tagdheer waxaana maanta ugu dambeyn habeenka xalay ku geeriyootay halkaas ehladeeda ayaa sheegay in ay toddobaad wax ka badan jiiftay cusbitaal ku yaala magaalada Burco ee gobolka Tagdheer waxay caan ku ahayd barnaamijyada maada ah iyo sidoo kale riwaayadaha qosolka ah oo ay soo duubi jirtay iyadoo inta badan qayb ka ahayd riwaayadaha ay soo duubaan dadka kale ah Sooraan iyo Jawaan oo ah laba nin oo jilaaga caan ku ah isla markaana ku dhaqan deegaanada Somaliland dad caan ka ah geeyiga Soomaalida ayaa ka tacsiyadeeyay Allah u naxariistay gaarida ku timi Sahre Roble oo qayb ka ahayd Burco baan ururka la yiraahdo haatan ay qayb ka ahayd isla markaana dadka u maadeeyay isla markaana
u jila waxyaabo kala duwan oo dadku ay ku qoslaan. gudaha dalka Soomaaliya qodobka ugu dambeeyana ciidamada xoogga dalka ayaa la wareegay sugidda amniga deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud iyadoo deegaankaasi ku soo laalaabtay dagaal u dhaxeeya beelo wada dagaalkaas ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ugu dambeyn maanta halkaasi geysay ciidamo la wareegaya xaqiijinta amniga deegaankaasi Xeraale. ciidamada ayaa waxa ay guud ahaanba maanta baaritaano ka sameeyeen deegaankaasi iyaga oo guri u baaray xaaladaha ka taagan deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud. waxaa la sheegayaa in beelihii ku dagaalamaya halkaasi toddobaadyadii iyo bilooyinkii ugu dambeeyayba xal laga gaaray iyadoo dowladda Soomaaliya iyo odayaasha dhaqankuna isku afgarteen in guud ahaanba dagaal beeleed dambe uusan kusoo laaban deegaanka Xeraale waxaana ugu dambeyn halkaasi maanta la geeyay ciidamo. saaxiibayaal gudaha dalka Soomaaliya qodobka ugu dambeeya waxa uu noqonayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dallacsiisay in ka badan 80 sargaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyadoo dowladda Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ee waday dallacsiin ay ku sameynaysa saraakiisha ciidamada ayaa 83 sargaal oo dallacsiiyay maanta ciidamada xoogga dalka. waxay isugu jiraan kalkaaliyaal iyo sidoo kale saraakiil ciidan kuwaas oo guud ahaantoodaba la dallacsiiyay isla markaana garaadiyaal sare loo xiray. taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka ayaana goobjoog ka ahaa munaasabada lagu dallacsiinayay saraakiishan oo sida isla markaana lagula dardaarmay inay ka qayb qaataan xaqiijinta amniga iyo sidoo kale nabad ku soo dabaalida dalka iyo caasimadda dalka ee Muqdisho. weli saaxiibayaal waxaad daawanaysaan warka warbaahinta Kaahiye Media. qodobka dibaddana waxa uu noqonayaa muhaajiriin fara badan ayaa ku geeriyooday gaari ku rogmaday koonfurta dalkaasi Turkiga. sida qorta wakaaladda wararka AB dad ku dhow 10 qof ayaa geeriyooday markii gaari bas oo ay la socdeen muhaajiriin uu ku rogmaday bariga dalkaasi. waxaa la sheegayaa in gaariga uu si xoog ah u karaarayay uu wadada ka baxay taasna ay sababtay in gaariga uu qallimo iyadoo muhaajiriin ay la socdeen. waxaa la sheegayaa in magaalooyin laba ah oo ka kala tirsan dalkaasi Turkiga u kala gooshayeen gaariga waqtiga uu rogmanayay. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa durba bartiisa Twitterka ku cambaarayay isagoo ka tacsiyadey dadka ku waxyeeloobay shilkaasi ka dhacay dalka Turkiga. guud ahaan saaxiibayaal war wixii dalkii dibadda naga soo gaaro aad ka daawanayseen Kaahiye Media waa inaga inta. haddii aad channelkan ku cusub tahay moogaan inaad saarto subscribe sidoo kale aad like dhahdo share aad u dhahdo saaxiibada si aad ula wadaagto. waad ku mahadsantahay daawashadaada saaxiibayaal. tani kulan dambe nabadgelyo.